waxaan rabaa anigoo aad u soo koobaya insha Allah inaan kalimadii rijeediyo anoo ku hadlaya magaca guddiganaga waxaa la magacaabay bishii 3-23keedii 2019 waxaanu shaqada bilownay si rasmi ah bishii 4-9keedii oo isla sanadkan shaqada markaan bilownay guddigan oo ah guddi commission cusub oo mandate-kiisu yahay 5 sano oo Jubbaland ku cusub oo aan waxba ka horeynin waxaan ugu nimid warqadiina lagu magacaabay iyo xeerkii uu baarlamaanku sameeyay ee habraaca doorashada ay ku qornay markaan fadhiisanay waxaanu ka bilownay inaan annaga maamulkanagii samaysano gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn iyo xubnaha kale oo aanu hawlo gaar ah u assign garaynay hadba siday ugu fiicnaayeen qof walba khibradiisii iyo aqoontiisii iyo wixii la mid waxaa runtii markii ugu horreysay noo soo baxday inay laga maarmaan tahay inaan dejinno tubta geedi socodka doorashooyinka Jubbaland ama road map waxa loo yaqaan road map-kaas wuxuu ka koobnaa waxyaabaha soo socda marka ugu horeysa in guddiga la tababaro maadaama hawsha ay qabanayaan ay tahay hawl gaar ah oo la xiriira doorasho waxay u baahan yihiin in cilmiga doorashada iyo farsamooyinka doorashada in guddiga laga dhiso oo la baro ayaa qasab noqotay taas wuxuu ahaa qodobka koobaad ee aan talaabadii ugu horreysay ka bilownay waxaa noogu xigay in aan shuruucdii dejinno shuruucdii hagi lahayd doorashooyinka sida ay nafarayaan xeerka aan ku shaqayno ee baarlamaanku sameeyey iyo dastuurkuba waxay nafarayaan inaan samayno xeerarkii hagi lahaa doorashooyinka waxaa noogu xigay la tashiga dadweynaha iyo barnaamijka wacyigelinta waxaad la socoteen inaan degmooyin badan tagnay oo ka tirsan gobollada Jubbaland annaga oo la tashanaynay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada jira kalena tashanaynay processka iyo nooca uu noqonayo iyo sida uu u samaysan yahay iyo nooca aan rabnay inaan u shaqeyno waxaa intaas noogu xigay inaan soo marti qaadnay odayaasha dhaqanka ee beelaha reer Jubbaland odayaasha oo runtii ka kala yimid gobollada ay ka kooban tahay Jubbaland magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay joogeen qaybo badan oo ka mid ah iyo qaybo ka timid wadanka dibadiisa intaba isugu jiray odayaasha dhaqanka ee bulshada ee reer Jubbaland waxay ka kooban yihiin guud ahaan sidaad ogtihiin odayaasha dhaqanka Soomaalida waxaa la ogaa markay siyaasadda timaado iyo kuraasta baarlamaanka iyo soo dhisidda dawladda way dhici kartaa odayaashu way badan yihiin laakiin inaga reer Jubbaland say inoogu xisaabsan yihiin waxa weeye qayb odayaasha guud ee Soomaaliya waxay ahaayeen 135 oo soo dhisay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya 2012 odayaashaas waxa ay Jubbaland qayb ka mid ah ayay ka haysataa oo ilaa 13 oday oo reer Jubbaland ah ayaa jooga oo qaybtaas ka tirsan qaybta ka labaad waxa weeye waa qaybtii ayagana xildhibaanada Jubbaland halkan ku dhisay oo u badan wakiilo inay ka yihiin intaas saxiixayaasha kale 13 jooga mahaane saxiixayaasha kale ee 135 ka tirsanaa ee ku nool qaybaha kale ee dalka
dowlad goboleedyada Puntland galmudug hirshabeelle southwest iyo gobolka banaadir ama caasimadda magaalada muqdisho halkaan saad ogtihiin shanta beelood 4.5 formula waxa loo bixiyay ayaa degan sidaa darteed odayga jooga masalan Boosaaso ama Qardho ama Garowe ama Cadaado iyo Soowad ilaa iyo Baydhabo ilaa iyo Jowhar ilaa Muqdisho odayga halkaas ku nool oo kamid ah saxiixayaashaas beeshiisa qayb kamid ayaa halkan degta saadarteed wakiil buu leeyahay oo wixii uu qaban lahaa qabta qaybna marka waa wakiiladaas dawladii dhexe oo xildhibaanadeedu hadda ay nagala joogaan reer Jubbaland iyo senatoriskooda senatarada xildhibaanada labada waa la dhahaa senatarada iyo golaha shacabka kuwii soo dhisay way intooda badan marka qaybna waa qaybtaas qayb kale oo saddexaad ayaa jirta oo odayaasheenu ay kamida dhaqanka ee Jubbaland oo aan dawladda dhexe seats ama kuraas ku lahayn oo ayagu odayaashii rasmiga ah laakiin wakiillo ma aha dawladda dhexana kuraas kuma leh laakiin baarlamaanka Jubbaland bay kuraas ku leeyihiin odayaashaasna waa qayb kale jirta wali oo aan intaba kuraas ku lahayn laakiin odayaal dhaqan oo sharci ah oo beelahooda hogaamiye ah ayaa jira marka afar qaybood oo categorieskaas afarta ayay ka tirsan yihiin odayaasha reer Jubbaland saas isugu jiraan marka odayaasha markaas u sharxo odayaashu way noo yimaadeen ayagoo aad u mahadsan odayaashaan marti qaadnay marka waa odayaasha xildhibaanada kule ama wakiilaha ahaadaan ama ayagu odayaasha rasmiga ah ee beelaha xukuumaha noqdaan waa odayaasha xubnaha xildhibaanada kule dawladda Jubbaland sida aad ogtihiin inagu waxaynu nahay Soomaali waa isnaqaanaa waxaan isku ogeyn in saddex qof la soo qoro oo saddexdaas qof uu mid noqdo sida sharcigu sheegayo uu mid noqdo gabar ay noqoto dad fara badan oo qayli jiray muddo dheer waxa la dhihi jiray odayaashu hal bay u baahan yihiin hal inay soo xulaan bay u baahan yihiin waxa weeye maxaa loo leeyahay laba soo xula markii practically shaqadii la dhex galay waxaan aragnay odayaashu inay naga codsanayaan inay weydiinayaan adeer 8 ma soo qori karaa adeer 10 ma iga dhigi kartaa yaani culayska lagu hayo odayaasha beeshii oo dhan baa soo dhaqaaqday jifooyinkii oo dhan baa soo dhaqaaqay wajigii labaad wuxuu noqday in aan isweydiino sidee saddexda qof lagu kala saaraya horay waxaan u diyaarinay criteria su'aalo ka kooban 22 su'aalood oo la weydiinayay xildhibaanada cusub xildhibaanadii hore waxaan u arkaynay inay xasaanadoodii u shafeeco qaado oo aan laga daayataa laga reebo at least laakiin xildhibaanada cusub way soo mareen su'aalahaas la soo weydiinayay waxaa muddo nala weydiinayay international community-ga iyo dad kale warade idinka markaad wax sameynaysiin hadaya meel intaad isku soo xidhaan baad idinku kaad rabtaan qaadanaysaan ka rabtaan iska deynaysiin marka waxaan u sheegnay warmaya criteria-dan ayaanu sameynaynaa oo wax ku kala dooranaynaa haddana waxaa timid criteria-dii ma guddiga kaliya soo ma fiicnayn in malaha wax kale markii dambe waxaan nidhi waxaan bayaa iska lahaa oo noo keenay soo odayaasha maaha waxaanu sameynay oo nu codsannay inay odayaashu intay isu tagaan ay noo soo diraan 5 oday dhaqameed oo 5 beelood ka kooban 4.5 ka ku salaysan oo nala jooga oo annaga observers ah ama kor joogtay nagu sameeya sida aan wax u xulayno qaabka aan su'aalaha u weydiinayno qaabka aan dhibco u siinayno iyo qaabka aan u marayno inaan saddexda qof aan ku kala reebno sidaad ogtihiin waxaa ku jiray qofka inaan aqoontiisa weydiinayno iyo qualificationkiisa waxaa ka mid ahaa in qofka security-ga yani check yani aan waxyaabaha khuseeya inaan wax ka weydiino waxaa ka mid ahaa in
aan qofka haddii uu wuxuun contribution la leeyahay bulshada uu ku soo qabtay maxaad soo qabatay inaan weydiino xataa qofka meesha uu degan yahay iyo haddii uu guri ku leeyahay meesha iyo haddii uu degan yahay dadka way noo kala muhiimsan yihiin qof hadda yimid haddaan kooyay iyo qof meeshaan degan oo dukaan ku leh oo beer ku leh oo ilmihiisu joogaan taas macnaheedu ma aha inaan diaspora la dirirayn laakiin bulshaday u kala muhiimsan yihiin waxaa ka mid ah inaan fiirino beelaha dhexdooda jufooyinka say kuraasta u kala leeyihiin oo qofka la weydiinayo jufadan aad adiga tahay waa jufadaas xildhibaanka idin fadhiya federaalka waa jufadee ma jufadaada wasiirka federaalka ma jufadaada xildhibaanka hadda fadhiyey halkan Jubbaland ma jufadaada wasiirku ma jufadaada senatarka ma jufadaada waa inaan wax warsanayn si beelaha balance loogu sameeyo oo aysan hal jufo wixii oo dhan ayna u qaadanin oo u boobin mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waqtiga oo runtii aan rabo inaan aad idinku dheeraynin geedigaas dheeran soo soconnay wuxuu ilaahay si nabad ah noogu soo gabagabeeyey shalay oo ay noo soo xirmeen xulashadii xubnaha baarlamaanka oo aan soo saarnay liiskii finalka ahaa ee xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan aad iyo aad isugu daynay inaan gabdhaha u dadaalno xoog baan saarnay inaan gabdhaha u dadaalno waxaan isku daynay inaan imtixaanka ka yarayno waxaan isku daynay inaan lacagta ka yarayno waxaan isku daynay inaan gabdho runtii gabdhuhu inay qayb ka mida noqdaan hoggaanka Jubbaland maanta waxaa ilaahay mahadiisa intaan rabnay maanaan gaarin runtii intaan rabnay laakiin maanta waxaa noo fadhiya 8 gabdhood oo xubnaha baarlamaanka ee cusub ah oo dowladda Jubbaland waanu hambalyaynayaa ayaga iyo xubnaha guud ee baarlamaanka cusub ee dowladda Jubbaland waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan rajaynayaa guul inay inoogu dhammaato waxa inoo xiga oo ah guddoonkii baarlamaanka oo la doorto iyo madaxweynihii oo aan dooran haddii la yiraahdo taasna insha Allah way inoogu xigi doonaan maalmahan waa maalmo farxadeed waa maalmo doorasho waa maalmo aan ku jirno arooskii dimuqraadiyadda marka waxaan rajaynayaa in ay noqoto maxaan ku dhahaa maalmo nabad iyo deganaansho iyo isjacayl iyo isdhexgal iyo hal meel oo Jubbaland u dhaqaaqdo maalmaheedii ayaan rajaynayaa inay noqoto haddii la yiraahdo waxaan ognahay sida aad ogtihiin mar haddii la idin dhaariyo oo xubnaha la dhaariyo automatically waxaa guddoomiye ku meel gaar noqonaya qofka ugu daaweyn marka waxaan rajaynayaa qofka ugu daaweyn annaguna waan garanaynaa ayaguna way garanayaan in maxaan ku dhahaa ay hoggaankii baarlamaanka haddii la yiraahdo inuu haddaba samaysmo dhaartaas kadibna haddii la yiraahdo ambaqaadkii annaga iyo guddoonkaas inaan ka wada shaqayno sidii loo dooran lahaa guddoonkii si rasmi ah kadibna tii kale aan uga sii ambaqaadi lahayn waxaan runtii aan u malaynayaa inaan dheereeyey raalli ka ahaada aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan ku soconaynaa system waxaan rabnaa inaan calaamayno qofkii dhaartay iyo qofkii aan dhaaranin si ay macquul ku noqoto marka waxaan rabaa intaan ugu yeero 15 qof baan halkii marba yeeri markaan yeeriyo markii tiimkaas la dhaariyo way laaban fadhiyadoodii ku laaban and then markaa kabacdi waxaan haddana yeerin inta xigta marka sidaa ha loola socdo si aan u aragno qofkii dhaartay iyo qofkii aan dhaaranin hadda waxaan u yeerayaa marka guddoomiyaha maxkamadda inuu ku soo dhowaado meeshii lagu dhaari lahaa xildhibaan abshiro axmed kadiib xildhibaan hiirad ismaaciil maxamed محمود أحمد ورسمة اللي بان محمود أحمد ورسمة اللي بان مصطفى مامو جدي اللي بان شيخ محمد عبد السلام
xildhibaan Ismaaciil Cabdi Keero waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada oo danta dalka dadka iyo diintuba ku jirto dhowrana sharciga qaranka iyo kan Jubbaland wabillahi tawfiiq annaga waxaan nahay odayaalkii dhaqanka ee reer Jubbaland ama Soomaaliya annaga hore u dhisnay federaalka odayaalkii 135 baan ka mid ahayn Jubbaland annaga hore u dhisnay ilaahay baa mahad iskale lambarkii labaad oo Jubbaland maanta dhismadeedii inaan u taagannahay oo boqolkiiba 80 ama 90 aan marayna mahadaas ilaahay baa iskale waxaan filahayaa Jubbaland Soomaaliya ay ka mid tahay Soomaaliya ha noolaato midda xigta maanta waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada wanaagsan ee guddiga doorashooyinka ay qabteen annaga oo la soconay si dhowna u la soconay annagoo matalayna bulshada rayidka ah sida ay waxay u qabteen aad baan ugu faraxsanahay waana sidii loo baahnaa processkan wuxuu u dhacay sidii loo baahnaa si heer sare ah oo professional ah yay wax u qabteen qaabkii wax u qabteenna aad baan ugu faraxsanahay waxaana soo dhaweynaynaa anagoo bulshada reerkana qaraynaa in selectionka iyo sida wax loo qabtay oo sax u ahaa sidii loogu talagalanay ahayd waxaan halkaan u soo istaagay wax badan ma aha waa kelmad hambalyo ah shaqadii wanaagsanayd oo guddigu ay qabteen oo aad u dhib badnayd oo muddo kala saarid iyo kala xulid iyo isu raadin ahayd oo runtii maanta guusheedii la joogo xildhibaanadii lagu dhaariyay waxaan leeyahay hambalyo guddiga hambalyo Jubbaland hambalyo xildhibaanada la dhaariyay waxa inta ay raacaya anigoo ah baarlamaanka federaalka in meeshaan ay ahayd meeshiina lagu soo saaray markaan raadinaynay baarlamaanka oo iyadoo sidaan ka buuq badan oo 3,000 oo erga ah ay soo xulahayaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Jubbaland haddana si habsami ah uga dhacday tii mid lamida oo baarlamaanka Jubbaland inay maanta meeshan ka dhacday waa farxad weyn waa wax lagu maxay ahayd manoodo ma sha Allah tabarakallah anigoo wakiil ka ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kuna hadlaya afkiisa waxaan idinku hambalyeeynaynaa xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland xildhibaanadii labaad oo lagu doortay halkan marka hore waxaan u mahad celinayaa guddiga madaxa bannaan xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland shaqadii adkeyd oo processka lahayd oo muddada ay soo hayaan sida qiimaha badan oo wala soconay oo saacad kasta annaga lafteeda aan ku joogtaynayn anagoo ka wakiil ah dowlad goboleedka Jubbaland aqalkiisa sare waxaan leenahay waad mahadsantihiin shaqadii fiicneed ee aad soo qabateen waa idinkaga mahad celinaynaa guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha marka labaad waxaa salaan iyo hambalyo leeyagu soo diray golaha dowlad goboleedka Jubbaland ee maanta halka lagu dhaariyay waxaana soo faray arintaas gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi salaanta iga gudooma haddii Allah idmo insha Allah taala hawsha halka kuma sii ekaan doonto waa sii socon doontaa annaguna waa korjoogteen doonaa baarlamaanka labadiisa gole ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaan marxaati ka nahay waxa meesha ka socda wanaaga iyo habsamida iyo sida sharafta leh ay u socdaan waxaan cadeyn doonaa insha Allah taala dowlad goboleedyada ku soo socota doorashada inay wadadaas iyo processka maanta Jubbaland ay qaaday inay maraan haddii Ilaahay idmo baarlamaanku qaybtii hore way tababaran tahay 4 sano bay soo qaateen 4 sano dad isku xidhan oo ismaqala oo hal mar aan khilaaf dhex gelin yay ku soo gudbeen sababtuna waxay ahayd dad oo ismaqalaya isku musaawaad oo dad waaweyn u badan yay ahaayeen
وأفرتي سنة وحنوغو لماتي خلاف الآن موشن الآن وحي دولة حقيقة نوغو يماذا حكومة كي يماذا أو نلاقى عصادة أم فضوضينو يعني أفرتي سنة كسو قدومني وضطشي الحمد لله ما أنت qaybtii hore qayb leego cusub baa ku soo biirtay hadii alla idmo waxaan ku dadaalaynaa in aan tababarno sidii aan ku soo dhaqmaynay ayagana ay nugula dhaqmaan oo ka dhaadhicino ayagana waxaan ka codsanayaa inay dhagan nuglaadaan oo waxaan waa wax hortood soo socday wanaagii ay ku soo socdeen ay nagu gacansiiyaan baan ayagana ka codsanaynaa intaas markaan ka gudbo waxaan u mahad celinayaa guddigii hawshan u soo dhabar adeegay ee intaas soo daadihinayay welina hadda waxba badan baa inoo dhiman wixii maanta laga bilaabo waxaa bilaaban doona shaqooyinkii inaga inoo gaarka ahaana waa ay soconayaan inagu waxaan bilaabi doonaa guddoomiyihii iyo labadii ku-xigeen inaan diyaarinno inagii iyo guddigu oo wada shaqaynayna iyo muxuu ahaa gudub inaan sii gudubno oo haddana madaxweynihii dooranno intaaba wada jir baan ku wada geli doonaa haddii alle idmo guddigu sidii ay u shaqaynayeen bay inoola shaqaynayaan ilaa arrinta gebagebe laga gaadho aad baad u mahadsantihiin wixii kale waa innagaa isu dambayn doonaa haddii alle idmo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu